العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. waxaan jecelnahay haddii ilaahay yidhaahda inaan galabtay aanu ka hadalno mowduuc ku saabsan bisha ramadaan. mowduuca waxaan kaga hadlaynaa soomka ilaahay uu nagu waajib yeelay inaanu soomno bisha ramadaan. bisha ramadaan in la soomo waa shay waajib ah, waa shay wujuubkiisa ilaahay qur-aanka uu ku soo qaaday sida hadda aayadda aan akrinay, oo ilaahay uu leeyahay dadkiinaan mu'miniinta waxaa lagu waajib yeelay soomka ayaa la idinku waajib yeelay buu ilaahay yidhi, sidii dadkii adinka idinka horreeyoo kale loogu waajib yeelay. marka shaygaa soonqaadka lagu magacaabahay in la soomo bisha ramadaan waa waajib. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inuu ka mid yahay arkaanta islaamka, sida xadiidkii saxiix ahaaba uu ku sugnaa: buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah. buniya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah wa iqaami alsalaa wa iitaa'i alzakaa wa siyaami ramadaan wa xaji lbeyti man istataaca ilayhi sabiila. marka sida xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka muuqata, ilaahay wuxuu waajib uu ka dhigay ramadaanka. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inuu ka mid yahay tiirarka islaamka, udubiyaasha islaamku uu ku taagan yahay. weliba markii nabigu uu tilmaamahayey wuxuu ku sheegay midka afaraad ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam u ka dhigay. shaygaas marka soomka lagu magacaabo waa shay waajib ah. ilaahay marka waajibnimadiisa sida hadda culimmaduba ay soo qaadeen, waxaa wujuubkiisu uu soo degay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii magaalada madiine nebigu usoo haajiray ee maka nebigu uu ka yimid. sida la ogsoon yahay, in badan waxyaalahan axkaamta ku saabsan ama waxyaalahan ilaahay uu jideeyey oo waajibaadka ah ama waxyaalahan manaahida ee la xarimay, in badan waxay soo degeen nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine marka uu yimid. intii nebigu magaalada maka uu joogay, inta badan qur-aankii soo degahayay waxay ka hadlahayeen waxyaalo ku saabsan iimaanka iyo dhanka caqiidada. laakiin markaa ka bacdi madiine markii loo soo wareegay oo diintii ay fiday oo islaamkii uu ballaartay, ayaa waqtigaa waxaa habboonaaday in dadkii muslimiinta ahaa waxyaalihii axkaamta ahaa iyo sidii ayagoo ay u dhaqmi lahaayeen oo shuruucda diiniga in loo soo dejiyo. xilligaa madiinay marka u badnaayeen waxyaalaha xagga xukunka ku saabsan inay yimaadaan. marka waxaa lagu sheegaa soomka wujuubkiisu inuu soo degay sanadkii labaad ee hijriga, waxayna aayaddu soo degtay baa la yidhaahdaa bisha shacbaan ee markaa ramadaanka ku horreysa. ilaahay asagoo ka warramahaya qur-aanka wuxuu ku yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. ilaahay wuxuu leeyahay dadkiinaan mu'miniinta ah waxaa waajib la idinkaga dhigay soomka sidii soomka loogu waajibiyey ummadihii adinka idinka horreeyey.
marka arrintaas ilaahay wuxuu ku tilmaamahayaa waajibkaas ilaahay uuna saaray in uu yahay waajib annaga aan gaar nagu ahayn inuu yahay ee markaa ummadihii hore annaga naga horreeyey ayaga laftigooda lagu waajibiyey soomka lagu waajibiyey. marka taa macnaheeda maxaa looga jeedaa? waxaa looga jeedaa waxa weeye inkastoo soomku uu yahay shay mashaqaa, soomku inkastuu yahay oo dhibaata markaa ay ku sugan tahay, haddana dhibkaasi inuu yahay dhib annaga aan gaar nagu ahayn oo sida annaga waxnala kugu jideeyey ummadihii horena waa loogu jideeyey. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja walow shaaa allahu lajacalakum ummatan waaxida walakin liyabluwakum fima aataakum fastabiqu lkhayraati ila allahi marjicukum jamiica fayunabi'ukum bima kuntum fiihi takhtalifuun. ilaahay wuxuu yidhi mid kastoo adinka idinka mid ah waxaan u yeelnay shareeco iyo dhabba uu raacahayo oo markaa uu qaadahayaan u samayn. ilaahay warkaa wuxuu kula khidaabahayaa waa ummadihii oo dhan buu ilaahay u jeedaa, ama ummaddaasi ha noqoto ummaddii maxamediyadahay ama ummadihii hore ka horreeyay ambiyadii hore loo soo diray. ilaahay wuxuu yidhi walow shaaa allahu lajacalakum ummatan waaxida, haddii ilaahay uu doono wuxuu idinka dhigi lahaa ummad keliyuu idinka dhigi lahaa oo kulligoodoo dhanba isku diin ah, kulligoodoo dhanba isku shareeco ah, ayagoo dhanba isku minhaaj ee hal waddo keliya mara ilaa laga soo bilaabo nebi aadam lagana soo gaaro nebi moxamed waqtigiisii iyo waxa ka dambeeya ilaa qiyaami saaca. waxaa oo dhanba inay wada noqdaan waxay xambaarsan yihiin, xataa haddii ilaahay uu soo diro ambiye kala bedelan kulligoodoo dhanba risaalo iswaafaqsan ee caqiidada iyo furuucda diinta iska waafaqsan ayuu ilaahay ka dhigi lahaa. laakiin ilaahay sidaa ma yeelin oo ilaahay wuxuu yidhi walaakin liyabluwakum fima aataakum. ilaahay laakiin wuu idinkala geeyey oo ummado xagga diinta ku kala duwan buu ilaahay ka dhigay si ilaahay uu idin imtixaamo, waxa uu idin siiya uu idinku imtixaamo. marka waa imtixaan, maxaa yeelay diinta iskhilaafidda ay iskhilaafsan tahay ummaddaa lagu imtixaamahaya. ilaa imtixaankaa dadna waa ku guulaysanhaya, dadna waa ku dhacahaya. waxa ka soo baxay waxaa ka mid ah ilaahay ambiyada hadba markuu nebi soo diro, nebigaa nebi ka dambeeyuu ilaahay soo diri jiray. waxaa dhici jirta diimihii hore in la nasakho la yidhaahdo nebigan baa ilaahay soo diray, xugum gaaruu la imaanahayaa, waxyaalihii awal furuucda ahaa ee la idiin soo dejiyey waxyaalo ka mid a ayaa diintiisu ay nasakhaysaa, nebigaa waa inaad raacdaan oo aada rumaysaan. meeshaa marka imtixaan baa imaanahayay. waxaa imaanahayay dadka qaarkii inay diidaan oo yidhaahdaan annagu nebi dambe warkiisa qaadan mayno, diintaa horaan iska haysanayna. meeshaana marka ay timaado inay islaamnimadii iyo iimaankii ay ku jireen sida ay ku waayaan. marka ilaahay wuxuu leeyahay tafriiqa imtixaankaasaa looga jeedaa. imtixaankaa marka qofkii ku guulaysta oo hadba ilaahay ambiyadiisoo dhanba wada rumeeya, hadda nebiga ka dambeeyay diinta hadda imaanaysa hadda diintii hore nasakhaysa, haddiiba uu soo gaaro nebi ilaahay oo markaa yimid ilaa nebi maxamed ba laga soo gaaro, markaa hadda rumeeya ee markaa raaca xaqa imaanhaya, qofkaasi waa qof xaqii kasoo baxay wey, waa qof imtixaankii ku guulaysay. qofka laakiin sidaa aan laga hel asagu marka wuu ku dhacahaya. ilaahay sidaa daraaddeed marka wuxuu ka farcado uu yidhi fastabiqu lkhayraati ila allahi marjicukum jamiican fayunabi'ukum bima kuntum fiihi takhtalifuun. ilaahay wuxuu yidhi tartama oo waxyaalaha khayrkaa ku tartama, yaa idinka dheerayn. waxaa la rabaa ummadiinan hadda muxamediyada ah oo khitaabku uu ku dhacahayo inaad ummadihii hore la tartamtaan oo markaa khayrka aada uga dheeraysaan. adinkoo dhanba ilaahay baad u noqonaysaa, kuwiinan hadda jooga iyo ummadihii hore lasoo dhaafay iyo kuwa diimahaas hore laftigooda sheeganaya. fayunabi'ukum bima kuntum fiihi takhtalifuun. ilaahay markaa wuxuu idiin sheegayaa waxyaalahaad isku khilaafteen buu ilaahay idiin sheegaya. mid walba markaa wuxuu ku abaalmarinahayaa wixii uu mutay. qofkii ilaahay ambiyadiisa rumeeyey, diimihii siday hadda u kala dambeeyeen u caqiidaynahayay, hadba haddii diin ilaahay uu soo diro nebigeeda aan beeninaynin markaa rumaynahayay ilaa laga soo gaaro nebigii ugu dambeeyey ambiyada
markaa la doonahayay ummadahoo dhanba inay raacaan. qofkii marka sidaa imtixaanka kasoo baxa hadda wuxuu noqonayaa qofkaa guulaysto ilaahay abaalmarintiisa oo jannaa buu helaya, qofkii kalena wuxuu helayaa ciqaab. marka macnaha aayaddaa waxaan usoo qaaday ilaahay marka uu leeyahay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum ayuu ilaahay wuxuu nagu tusaaleynahayaa soomkuba dhibba ha ahaadee, laakiin dhibkaana inaanu ahayn dhib dadka muslimiinta ku gaara inaanu ahayn, ee waxyaalaha takaaliifta ah ee ummadaha la saaray ayuu ka mid yahay. waxa mar haddii adiga lagula wadaagana waxaa la yidhaahdaa waxaa ka mid a xikmaa waxay tahay albaliyatu idaa cammat haanad. imtixaanku marka uu ballaaran yahay oo markaa adiga keliya uusan kugu ahayn, imtixaankaasi imtixaan fudud buu ahaanay. ilaahay marka isla aayadda aakhirkeeda wuxuu uga hadlay soomku bacdamaa uu mashaqo uu yaho uu dhib yahay, ilaa qofka waxaa loo diidahayaa waxyaalo naftiisu ay jeceshahay, cabitaankii baa loo diidahayaa, cunidii baa loo diidahayaa, galmadii baa loo diidahayaa. haddaba maxaa imtixaanka noocaasa qofka yacni loogu sameeyey oo sanadkii bil ka mida loogu sameeyey? natiijada shay walba ilaahay markuu samaynahayo wax cabad la yidhaahda ilaahay uma sameeyo, wax walba ilaahay wuxuu u sameeyaa xikma. ilaahay wuxuu yidhi lacallakum tattaquun buu ilaahay. waxaa soomka la idinkugu waajib yeelay sidii ummadihii adinka idinkaga horreeyo loogu waajib yeeloo kale, lacallakum tattaquun, inaad ilaahay ka cabsataan, inaad dembiyada ka dhowrsataan oo aada iska ilaalisaan. sidaasaa soomka la idinkugu waajib yeelay. marka sida soomku taqwada uu u gaarsiinayaa macnaheedu waa maxay? waxa weeye bishaas ee sanadka ah qofku inuu soomo, sanadkii halkaa bil inuu soomo waxaa loogu waajib yeelay. waxaa la rabaa qofka muslimka ahay inuu qaato waxa la yidhaahda tadriib. macnaha qofka waa la laylinhayaa, waxaa lagu laylinhayaa siduu naftiisa u xukumi lahaa, siduu naftiisa u celin lahaa, ee waxyaalaha ay jeceshahay uga celin lahaa. maxaa yeelay sida la ogyahay waxyaalaha dembiyada ah ee taqwada wax u dhibahayo oo dhanba marka maxay yihiin? kulligood waxa weeye waa waxyaalaha shahawaadka ah oo naftu yacni ay jeceshahay. sidaa daraaddeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xufat iljannatu bilmakaarihi wa xufat innaaru bishahawaat. nabigu wuxuu yidhi jannada waa la koobay buu yidhi, oo waxaa jannada lagu wareejiyey waxyaalaha naftu ay kahanayso. ila waxyaalahan daacada ee sharcigu uu farhayo dhanba waa wax naftu ay kahanayso. naartana waxaa lagu wareejiyey waxyaalaha naftu ay jeceshahay ayaa naarta lagu wareejiyey. marka taqwada macnaheedu marka waxa weeye waxyaalaha naftu ay jeceshahay oo ilaahay uu kaa manciyey inaad ka harto. marka sidaa daraaddeed qofku marka uu soomahayo, soomka marka waxaa ku jira in loo diido waxyaala naftiisu qofku ay jeceshahay. waxyaalihii hadda aan soo sheegnay ay ka mid yihiin sida cunada iyo cabitaanka iyo jimaaca oo kale ay ka mid yihiin, iyadoo weliba ay usii dheer tahay maalintaa uu sooman yahay inuu dembiyada iska ilaaliyo si yacni soomka ajarkiisi aanu u waayin. qofka marka muslimka ahi maalintaa uu sooman yahay is-ilaalin buu marka samaynhaya. wuxuu iska ilaalinhayaa waxyaalo awal u banaanaa oo naftiisu ay jeclayd buu iska ilaalinhayaa. wuxuu iska ilaalinhayaa waxyaalo awalba xaaraam ka ahaa ee loo sheegay soomkiisu inuu burinhayo oo thawaabkiisu uu baabi'inahayo iska ilaalinhayo. bishaa marka yacni wuxuu baranhayaa qofka muslimka ahi sida nafta loo xakameeyo, sida nafta loo xayira ayuu baranhaya. marka waxaa la rabaa tadriibka aada qaadatay iyo isxayiraada aada qaadatay, macnahaasi waa macnaha taqwada la yidhaahdo. taqwa macnaheedu waa dhowrsi weeye. marka is-ilaalintaasa waxaa la rabaa inay dhaqan kuu noqoto, oo hadhow bisha ramadaan laftigeeda haddii aada kasoo baxdo sidii awalba naftaada aada u xayirayso, aada isku ilaalinayso o kale aada isku ilaaliso. marka hadda tadriibka noocaasa haddaad fiiriso, qur-aanka ilaahay meelo uu kusoo qaaday baa jiray oo arrinta noocaasa xataa la sameeyey. tadriib noocaas oo kale ah ayadoo dad la rabo in daaca loo diro inay sameeyaan. marka meeshaan waxaa la rabaa taqwo ilaahay inaad la timaado. taqwadii baa marka lagu laylinhayaa, laylin baa la samaynhaya. qur-aanka ilaahay wuxuu kusoo qaaday nin melig ahaa ee markaa daaruud la oran jiray, oo waqtigiisa ummadii joogtay nebigii ilaahay uu usoo diray ay ka dalbadeen ilaahay in mar jihaadka la faro, jihaada la yidhi qolooyin gaala inay la dagaalamaan. kolley qolooyinka camaaliqada la oran jiray weeye.
ayay waxay ka dalbadeen oo ay yidhaahdeen waxaan rabnaa in naloo soo saaro axad boqor ah oo markaa aan la dagaal galno isaguna hogaamiya. marka waxaa loo soo saaray nin la yidhaahdo daaluud baa loo soo saaray. daaluud markii ciidanka uu la baxahayey imtixaan xagga rabbi ka yimid buu u sheegay oo intaan dagaalka la gelin ka hor lasii marhayo. ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi suuratu lbaqara falamaa fasala taaluutu biljuluudi qaala falamaa fasala taaluutu biljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minii waman lam yطcamhu fainahu minii ilaa man ikhtarafa garfatan biyadi fasharibuu minhu ilaa qaliila minhu falamaa jaawazahu huwa waladiina aamanuu macah qaaluu laa taaqata lana alyawma bijaaluuta wajunuudih qaala aladiina yadunuuna anahum mulaaqu llah kam min fi'atin qaliilatin galabat fi'atan kahiiratan biidni illah wallahu maca asaabiriin walamaa barazuu lijaaluuta wajunuudihi qaaluu rabbanaa afriq calayna sabran wathabbit aqdaamanaa wansurnaa cala alqawmi alkaafiriin fahazamuuhum biidni illah waqatala daawuudu jaaluuta waaataahu llahu lmulka walxikma. marka ilaahay wuxuu leeyahay ciidanka markii uu la baxay daaluud waxaa mufasiriinta qaarkood ay ku sheegaan ciidankaa meesha uu kala baxay inay ahayd baytulmaqdis isagoo qolooyinkii gaaladaha marka la jihaadayo. markaasuu ciidanku watu wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku imtixaamahayaa oo dhabaha aad jihaadka usii qaadaysaan aada sii maraysaan webigaa waxaa lagu sheegaa urdun iyo falastiin meel u dhaxaysa inuu ku yaalla. faman shariba minhu falaysa minii waman lam yadcamhu fa inahu minii. adinkoo ooman baad webigaas maraysaan, webigaas biyihiisa qofkii cabaay aniga igama tirsana, aniga atbaacdeeda ka mid maaha. qofkii webigaa biyihiisa aan dhadhaminna aniga ayuu iga tirsan yahay. marka ilaah baa idinku imtixaanhayo. marka imtixaankaana xagga rabbi buu ka socda ilaa waxaa laga soo reebay qof mar un keliya sidaa gacanta u darsada maaha. ilaahay marka muxuu yidhi markay webigii yimaadeen biyihii webigay cabbeen oo si badan bay u cabbeen ilaa wax yaroo ayaa ka mid a maaha. wax yaroo ayaa ka mid ah waxay ku kaaftoomeen mar keliya inay gacanta darsadaan adooman bay ah amarkii bay qaateen. qur-aanku marka sida uu sheegahayo hadhow markii nebigu uu gudbay webigii ayadoo markaa ay la socdaan dadkii marka yacni mu'miniinta ahaa, kuwii biyaha cabbay marka maxay yidhahdeen? qaaluu laa taaqata lana alyawma bijaaluuta wajunuudi. waxay yidhaahdeen annagu awood uma lihin ninka jaaluud la yidhaahdo, ninka lala dagaalamahayo isaguna qolada gaalada madaxda u ihi jaaluud baa la oran jiray, kan muslimiinta hogaamiyada daaluud baa la yidhahda. marka waxay yidhahdeen ninka jaaluud la yidhaahda iyo ciidankiisii awood aan kula dagaalamna ma lihin. sidaasay yidhahda. marka imtixaankaa marka la marsiinayo waxa weeye waxaa la rabay in la ogaado casiimadooda inay yihiin dad go-aan le inay yihiin. marka qofku markuu go-aan leeyahay oo waxyaalaha iska daa la yidhaahda naftiisa uu ka celin karo, weliba ay dhacayso waxyaalahaasi wax uu u baahan yahay inay tahay, markaasuu marka awoodi karaa waxyaalo ka waaweyn inuu sameeyo. ila dadkan hadda waxaa loo wadaa inay dagaalamaan. dagaalku marka waxa weeye jihaadku waa cibaado aada u dhib badan. qofku haddii dagaal uu galo maxaa ku imaanahaya? geeri baa ku imaanaysa, dhaawac baa ku imaanahaya, dhibaatooyin badan buu la kulmahaya inta uu dagaalamahayo. marka yacni marka wuxuu u baahan yahay qofka noocaas oo kale. waad aragta mathalan dowladuhu ciidanka intay soo ururiyaan oo magaalada kasoo ururiyaan, ciidan baa tihiina dagaalama ma yidhaahdaan, tababar bay geliyaan. tababar waxaa la geliyaa aada u dhib badan. waxaa la marsiiyaa nolol aan caadi ahayn oo xataa jiifkooda iyo raaxadooda waxaasoo dhan ba ay yaraanhayaan. danta laga leeya waxa weeye bacdamaa dagaalku uu dhib badan yahay, waxaa la rabaa inay dhibkaa u adkaystaan. maxaa yale waa dad imtixaan badan baa la soo mariyey, laylin baa lagu sameeyey. qoladan marka waxaa la rabaa in la ogaado dadka kan hadda jihaadka u socdaay bal go-aanka naftoodu ay qaadan kadha iyo casiimada ay leeyihiin. qofkii la yidhi war biyahaas ka dhaaf hal mar keliya sacabka inaad darsato waa lagu ogolyahay. weliba xataa la sheegahaya ilaahay fadligiisa halka mar inay ku fillaanaysay. ee middaa naftiisa ka celin waayey
hadhow markii muwaajahadu ay timaado oo markaa cadowgii ay iska hor yimaadaan uu ogaanahayo in geeri ku imaan kardho in dhaawac halisi uu soo gaari karo qofkaasi muxuu samayn karaa? waxaa laga yaabaa inuu soo cararo marka dagaalkii inuu ku jabo marka uu baqdo. sidaasaa marka dhacdo qolooyinkii biyaha caba waxay ma awoodi karno. kuwii kale marka maxay yidhahdeen? qaala aladiina yadunuuna anahum mulaaqu llah kam min fi'atin qaliilatin galabat fi'atan kathiiratan biidni illah. kuwii markay yaqiininahayay ilaahay inay la kulmahayaan oo ayagu imtixaankii ka soo baxay ee biyihii la yidhi yaan la cabbin ilaa in gacan keliya la darsado hal mar maahane sidaa yeelay sameeyey. waxay yidhaahdeen badanaa bay yidhaahdeen koox yar oo koox badan ka adkaatay ilaahay idankiisa uga adkaatay. ayagiibuu marka wata daaluud. kuwaa keliya dagaali ka qayb galay. ciidankii ay ku duulahayeen oo markaa gaalada ahaa ee ayaga dulmiga iyo gardarada ku samaynahayeyna way ka guulaysteen. oo waa kan ilaahay uu yidhi fahazamuuhum biidni illah waqatala daawuudu jaaluud. ilaahay idankiisii ayay ku jabiyeen. daawuud oo xilligaas aan nebi ahayn ee ciidankii daaluud ka mid ahaa ayaa jaaluud laftigiisii dilay. ilaahayna abaalmarin wuxuu uga dhigay waa ka ilaahay yidhi ilaahay waxaan siinay buu yidhi mulki iyo xikmad. boqortooyadii asagaa daaluud kala wareegay. xikmadaa la sheegahayaana waa nebinimadii oo kabacdi baaba nebi laga dhigay. marka qisadaas macnaha waxay tusinaysaa dad muslimiin ah ee markaa dagaal loo waday in imtixaan la mariyo dagaalkaa ka hor. marka sidaa daraaddeed sababta yacni ilaahay ramadaanka uu u jideeyey waxa weeye waa imtixaan qofka muslimkaa la marinahayo. qofka muslimkaa ayaa waxaa la barahayaa siduu naftiisa u xakamayn lahaada la barahay. waxa weeye cunada aad baa loo jecel yahay. cabitaanka waa la jecel yahay. wiqaaca waa la jecel yahay. waxyaalaha kaloo xumaantaa qofku inuu iskaga hadluu jecel yahay. marka bisha ramadaanka ah waxyaalahaasoo dhan qofku marka uu ka fogaado oo markaa naftiisa ugu ilaaliyo oo waxyaaluhu jeclaa iska ilaaliyo oo waxyaalihii dembiyada aha uu yidhaahdo warya soonkaaga yaanay wax u dhimin tadriib buu marka qaadanaya. tadriibkaas marka waxaa la rabaa inaanu bisha keliya ku ekaynin. xikmadda bisha marka laga lahaa sidaa daraaddeed marka shicir waxaa ku sugnaa idaa ma almar'u saama cani alkhataaya fa kullu shuhuurihi shahru siyaam. qofku hadduu ka afhaysto waxyaalaha gafafyaasha hadduu ka afhaysto bilihiisoo dhan waxa weeye waa bil soon wey oo kale. marka tadriibkaas ayaa ilaahay u jideeyey. sidaa daraaddeed marka waxaa la yidhaahdaa soomka waxaa ku sugan taskiyatu nafsi wa tadyiiqu masaalik shaydaan. nafta oo la dahiro iyo shaydaanku meelaha dadka uu usoo qaadahayo la ciriiriyo kaas ayaa ku sugan. maxaa yidhaha hadda shaydaanku waxa weeye meel walbuu qofka ka marhaya. oo xadiidkii saxiixaha nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kan ku yidhi ina ashaytaana yajrii min ibni aadam majra dami. shaydaanku bini aadamka wuxuu ka maraa dhiigu meesha yacni uu ka maroo kale. waad aragteen oo waxa weeye haddii la eego bini aadamka ama waxyaalahan kaloo xayawaanaadka ah dhiigu wuxuu maraa halbowlayaasha iyo xididada. xididaduna jirka meel walboo kamida way ku samaysan yihiin kor iyo guda iyo hoos. marka waxaa looga jeedaa shaydaanku qofka yacni bini aadamka mukhaalada ziyaadaa buu ku leeyahay. waa wax aada iyo aada u waswaasinhayo weeye. marka waswaaskaa waxyaalaha yaraynhaya oo shaydaanka dhaqdhaqaaqiisa yaraynhaya waxaa kamid a ilaahay daacadiisa lagu dadaalo iyo iyadoo siday ahayd marka loo sameeyo ayaa kamid a waxyaalaha yaraynaya. marka sidaa darteed nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen isagoo dhalinyarada la hadlahaya mar soom uu farahayay ayaa nabigu wuxuu yidhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarj waman lam yastadic facalayhi bisawmi faina lahu wijaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dhalinyarooy qofkii awood u leh kharashkii uu ku guursan lahaa ha guursado. maxaa yeele qofku inuu guursado ayadaa laabid badan araggiisa ayadaa farjigiisana ilaalin badan. qofkii taa aan awoodinna ha laazima inuu soomo. soomku dhufaan buu u yahay. marka meeshaa waxaa la tilmaamahayaa
soomku siduu ahaa iyo xaqiisu siduu ahaa hadduu qofku u soomo in yacni tadyiiq uu samaynayo shaydaanka masaaligdiisii uu cidhiirinayo weliba ay ka mid tahay waxyaalaha caawinahaya qofka baahida laftigeeda waa ka markii jaanibkan hadda nabigu uu ka hadlahayo xadiidkan la eego. marka sidaa daraaddeed shaygaa soomkaa ilaahay uu waajibiyey xikmooyin badan baa ilaahay u waajibiyey. xikmada yacni ugu weyne ugu horeysa waa midda hadda aayadda ilaahay uu kusoo qaaday oo markaa ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. kuwaana mu'miniintaaye ilaahay wuxuu ugu yeerhayaa wasfigoodii oo ahaa iimaanka. sidaa daraaddeed cabdullaahi bnu mascuud waxyaalaha laga soo guuriya waxaa ka mid a inuu leeyahay haddii aada aragto ilaahay oo odhanhaya aada maqasho yaa ayuha aladiina aamanuu maqalkaaga u dhagraaric si weyn u dhagayso fa inahu khayrun tu'maru bih aw sharun tunhaa canhu. waxaa soo socdaa waxa weeye waa khayr lagu farahayo ama waa shar lagaa reebahaya kaawe. marka waa inaad ajiibtaa sida ilaahba aayad kale uu ku lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum. kuwaan mu'miniintaaye ilaahay iyo rasuulkiisa ajiiba haddii uu idinkugu yeero rasuulku ila ilaahay buu wakiil ka yahay waxa adinka idin noolaynahaya ama ilaahba idinkugu yeero. marka xikmadda ugu horeysa oo ramadaanku uu gaarsiinaya qofka waxa weeye oo loogu talagalay waa inuu taqwa gaarsiiyo is-ilaalinta inuu gaarsiiyo. xikmooyin kale ayaa markay jiray culummadu ay soo qaadaan. maxaa ka mid ah xikmooyinka waxaa ka mid ah oo ramadaanka laftigiisa loo waajibiyey ramadaanku inuu yahay zakada jasadka inuu yahay. sharciga haddii la eego wax walba waxaa la rabaa zaka in laga bixiyo. waad aragtay hantida nuucyadeedii oo dhan zaka ayaa laga bixinaya. zakaad ka bixinaysaa maalkaaga nooc kasta uu yahay inaad zaka ka bixisa ayaa laga rabaa. marka badanka laftigiisu marka zakuu leeyahay sida xadiid ibnu maaja abu hureyre uu ka wariyay nabigu uu ku yidhi likulli shayin zakaatun wa zakaatu ljasadi assawm. nabigu wuxuu yihi shay walba wuxuu leeyahay zaka laga bixiyuu leeyahay. jirka zakadiisu waxa weye waa inaad soomta wey. marka qofku marka uu soomahayo jasadkiisa isbedel baa ku imaanaya. soomku ma aha looguma talagelin sida hadda dadka qaarkii isticmaalo oo cunadii maalintii soo dhaafto oo dhanba habeenkii inuu jamleeyo. taa looguma talagelin. waxaa la rabaa si caadiya uu cunahaya inuu baahidii dareena ayaa la doonahaya. waa afurahaya waa saxuurahaya isagoo cunadaan saxuuranahaya isagoo cunadaan iska belinayn. sidaasuu marka samaynaya. marka taasi waa xikmo oo xikmooyinkiisa ka mid ah. maxaa kaloo haddana xikmada soomka ka mid ah. xikmada soomka waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha loo jideeyey ta'diibu lcibaadi bialami ljuuc. addoommada in la edbiyo lagu edbiyo gaajada xanuunkeedii waa. oo maxaa loogu edbinahayaa in ay aqoodaan nicmada dhirigtu waxa ay tahay inay aqoodaan iyo inay u naxariistaan dadka fuqarada iyagoo aan waxba haysan. xikmada looga jeeda ayaa ka mid. maxaa yeele hadda mathalan qof waxaa iska dhici ka dhataniya markuu yaraa ku dhashay guri reer dhaqan ka dhashay ee markaa wax haysta. hadduu weynaaday markaa isagii wax haystee hanti lahaa laga yaabo weligiiba inaanu wax gaajo la yidhaahda aanu arag. marka qofka noocaasa haddii uusan soomeyna soomka aan lagu waajibeen waxaa dhici lahayd wax gaajo la yidhaahdaba inaanu aqoonin. xayiraantiisi ma soo marin, weynankiisi ma soo marin, weligii marka waa dharagsanaayo dhibaato iyo baahi ma aanu soo marin. qofka noocaasi marka fahamsana dadka yacni fuqarada oo ayagu gaajaysan oo baahan dhibaatada haysa ma u fahamsana. maxaa soo gaajo maba yaqaano. gaajo maba yaqaano. laakiin markii qofkaasi uu soomo ilwaad aragto hadda soomkii dadkii dhamaa waa lagu waajibiya. qof kasta ayaa soomahaya ama faqiir ha ahaada ama xoola ha lahaa. ninkii xoolaha lahaa
marka uu soomo oo soomka baahidiisa iyo oonkiisa uu arko markaa wuxuu dareemahayaa yacni baahida dhibkeedii buu dareemahayaa wuxuu ogaanahayaa dhibaatadaas asagu bisha u adkaysan laayahay dad maalin walba inay nolol maalmoodkooda ay ka mid tahay oo laga yaabo maalin dhan inaanay cunno helay ama 2 maalmood inaanay cunno helay ee weligoodba ay ku nool yihiin baahi ay ku nool yihiin taasi marka waxay keenaysaa inuu dadka noocaas oo kalea u naxariisto xikmada soomka loo jideeyay ka mid culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa ina acdama shayin fi lqiyaamati wa fi nnaar aljuucu waalcadash waxaa la yidhaahdaa shay midka ugu weyn wax midka ugu weyn qiyaamo iyo naarta waa gaajada iyo oonka waxaad ka garanaysaa oo maxay leeyihin wa liqawli ahli nnaari fi nnaari an afiiduu calayna min almaai aw mima razaqakum allah maxaa yeele dadka ahlu naarka ahi marka naarta ay ku sugan yihiin waxyaalaha ay dalbanahayaan waxa weeye waa biyo iyo waxaan cunahana la siiyo aad arkaysaa fiil asagiyo xataa naartii gudaheeda laftigeeda ku jira ayuu si gaara wuxuu u dareemahayaa dhibka gaajadu ay leedahay iyo dhibka oonku uu leeyahay suuratul acraaf ilaahay markuu kusoo qaaday aayadda waa tii ilaahay uu lahaa wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljanna an afiiduu calayna min almaai aw mima razaqakum allah qolooyinka asxaabu naarka ahi waxay asxaabuljannihii u dhawaaqahayaan oo u yeerahayaan oo waxay leeyihiin war nagu shuba biyaha aada haysataan iyo waxyaalaha ilaahay uu idinku arsuqo idin siiyey oo yacni cunnada anwaacdeeda ah nagu shuba oo noo keenoo na siiya bay odhanhayaan hadalkooda way ismaqlahayaan ilaah baa isu gudbinaya markaasay u jawaabahayaan kuwii ahlu jannaha waxay leeyihiin qaaluu ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin ilaahay gaalada uu ka xarimay ayay odhanhaya marka waxaa laga hadlahaya qolooyinkii naarta ku waarahaya marka meesha waxaad garanaysaa sida gaajadu u dhib badantao oonku u dhib badan yahay xataa ahlu naarkii oo naartii iyo dabkii ku dhex jiraayay inay dareemahayaan dhibka gaajadu ay leedahay iyo dhibka oonku uu leeyahay oo xataa aanu halmaamsiinayn naartaan iyo cadaabkeed ay ku jiraan maxaa yeele laftigooda waa imtixaan daran ilaa ay la dhawaaqaan oo ahlu jannadii u yeeraan oo yidhaahdaan war biyo na siiya war waxaad haysataan oo cunadaa na siiya ay yidhaahdaan marka waxay ka mid tahay xikmada soomka loo jideeyey in dadku markaa baahida ay dareemaan si marka ay ugu naxariistaan dadka yacni waxa weeye dhibaataysan midda kale haddana waa isla xikmadaas oo yacni ah inaad aqooto nicmada yacni dheragta waxaa la yidhaahdaa al ashyaau tucrafu bididdiha baa la waxyaalaha waxaa lagu aqoodaa shay walba shayga kasoo horjeedaa lagu aqooda dherag waxa ay tahay iyo faa-iidada ay leedahay iyo qiimaha ay kugu fadhido ogaan maysa haddii aadan gaajoonin waxaa lamid a mathalan caafimaadka oo kale qofku caafimaadka qadarkiisa wuxuu ogaadaa marka cudurka uu ku dhaco qofku taniyo habeenku dhashay hadduu iska caafimaad qabay ee wax cudur la yidhaahdo aanu ku dhicinin ma yaqaano cudurrada dhibkooda ma yaqaano waxaa laga yaabaa cudurro badan oo khatar ah magacyadooda inuu maqlo hebel cudurkaasuu qabaa hebel cudurkaasuu qabaa asmaa iyo magacyaal bay u yihiin maxaa yeele wax naftiisa uu ka dhadhamiyey ma aha laakiin yaa og waxaa og qofkii cudurka uu ku dhacay marka sidaa daraaddeed xikmaa waxay tahay alcaafiyatu taajun calaa ru'uusi lasixaai laa yaraahu ila almardaa caafimaadku waxa weeye waa duub dadka caafimaadka qaba madaxa ugu xiran duubkaas uma jeedo ilaa kuwa cudurka qaba maaha kuwa iyagu jiran ayaa duubka arkahaya sidaa daraaddeed nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tii uu lahaa nicmataani maqbuulun fiihimaa kathiirun min annaas alsaxatu walfaraaq nabigu wuxuu yihi 2 nimco dadka in badan oo ka mid ihi kuwa lagu kadiyo oo ku kadsoomay weeye oo 2daa nimco maxay yihiin waa caafimaadka iyo camal la-aanta qofku markuu caafimaad qabo waa nicmo waxyaalo badan buu la iman karaa waxbuu baran karaa ilaahay cibaadadiisii buu badsan karaa hadduu raba adduunyadiisi u shaqaysan karaa ma garat faraaqa laftigiisu waa sida qofku haddaanu mashquul ahayn ee markaa caruur iyo xaas iyo waxyaalo kale aanu ku mashquulin
وحل وحبرن كرو دينتي سو برن كرا وحيالا كرو برن كرا واسقى دنيا سي آخرة سأنفعها هي ما لكن مركو لبدا وايو أيو أوغانا هي نعمة راسي وحا أيو فردي أوغانا هذا الكيسا قفكو مركو دليانا يا عم حبرن وحي أما الدنيا سأما آخرة سأنفعها يا عم برن هذا مركي أويلادو مشاكل باكو دعايا حلقي برشادي واسو ضعف إنه هذا برتاء ومفروضة هذا يجي على برشة اسمه مشغولي وهو بكون حسابتين هي أولية برشة لا قرما وبحث ليس وتجي وصاير يلا وكلي مركوان مهيون مركة تاسرة وحي كم تهاي وحيالها حكمتها وإلهي صومك وجدي أي كمت وحكمل وحيالها حكموينك أو صومك لفتي يسلو جدي حكى لو كمل وحكى لو كمل أنه السر بين العبد وربه أنه السر بين الله والصائم معناها صومك إنه يهي سر كده حيث إلهي يقفك صوما وحاوية وحكموينك صومك اللوجي دي بيكمل وهذا مثلا عبادوين كان هدين لأيوه وعبادوين كل قوض بموقنا هي وحال لها عبادات ككلا فيها حظ للنفس نفسه يعني ديف با وقصغا وحبي نفسه كفائديسا ايضو وحاس اي كفائديسو اما هاوجيدو او هاولجيد اما يعني اولجيد مثلا maxaa kamid hadii hadda aad salaad tukanayso salaadaadi waxa weeye waa laga warqabaa hadii salaad aad tukanayso salaadaadi waa la og yahay oo waxaad yeeshaa صلاة هدا تكنيسو لا تكنيسو صلاة دادي وصل هدا تكنيسو صلاة دادا محوها ولا أركايا وما دي أردن بأركيسة صلاة دادا ما قرأت وما دي أردن صلاة دادا أركيسة والوجيدة أنا مركب وحبات كفائديسة هدا هدا إلهي درتي أدوكو تكنيسو لكن دادكي وحي أرانها يعني هبلوانين تكالا مشاهدكي بو يمالا جماعوينكي وكسوقا ولو أدي وجددادو يعني أهان هداد حجيني سوى الله أركها يا إناد حجيسي هداد ذكا الله بحيس سوى الله أركها يا إناد ذكا الله بحيس هداد جهادي سوى الله أركها يا إناد جهادي سوى أعماشا كالو نمبا وحموقانها يوي أو قفكو وحيالك كالو دادك أمانتو ده أو كفائدها يا أياجي ولو هدورها ماما إلهي درتي بها بوصبينها يوحا لكن أما صومك هدين لأيو صومك وحاوي وعمل قصوي قفك يا إلهي بقول هيا قف هذا ما أنت مركو سومي وأديك كأجو وكأكفديو إصلاح حالة عباده كجرا لكن عبادك مقارنة يسمعها عبادة أضواء يسمعها سيدا درادين وكان حديث البخاري ومسلم أي وريين وحديث القدسي جاء إلهي أكيري كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وهو إلهي يري بني آدم كعملك وصمينها يو دنبا أساقا إسكاله إلا صومك ماهنا صومك أنيقاله كو أول مرينها إلهي سلام يقول لي معناه حلو وجه لا أعماشان كالو قفك وصمينها يو نفت فائدوين با وجره dadka arkahaya dadka ku amaanahaya dadka ku baranahaya dadka ku sifaynahaya ku sheegahaya illa soomka maan soomka aniga leh buu ilaahay ana qofku markuu soomahayo waxyaalaha lagu tilmaamo waxa kale soomka waxa la yiraahdaa istustusku ma galo hadaa adigu la raadsan hadaa adigu dadka inta u tagta anigu waa soomanaho soom sunnaan sooma kida hadaa adigu qofna la raadsan waa cibaadad muuqanayn way ma galo qofku arkahaya lama arko لكن قاصد سير صلاة دي وكلام صلاة دي ومقان ماشي لما كله ومقان هيا صوم كأنيقا إسكاله بوي أنيقا نقوى أول مرنا إصلا الروايات كالفتي والله كسرنا مركي صوم كإلهي وسيع عدين هيني يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي معناه هو كتجه هي عنيتان كيسي هي عبيتان كيسي إيوه وحيالي شهوة يسي بكتجه أنيقا دلال دي بكتجه معنى إلهي وتصالينا هي قف كان هذا صوما وهلي كرا قولي سمركو جوجو سقر صون إنه وحو عبده سقر صون إنه وحو عضو سقر صون هدوها وإنه وحو جماعه دادك هدو مركو ده جوجرا
sidii qof sooman iska dhiga uu heli karaa asagoo marka cidi aanay raqiib ku ahayn oo aanay controlayn ilaahay maaha wax ka warqaab aanay jirin markuu baahida la gumanahayo oo gaajada la gumanahayo muxuu arrintaa u samaynaya waa ilaahay daraaddiib u samaynaya ugama jeeda darti maxay dadku lamama socdaanba dadku waxa qofkaan uu samaynayo haddeer maanta qofkii sooman oo leeyahay hebel waa sooman yahay qof oran kara hebel inuu sooman yahay anaa huba lama arko magara hay 24 saac miyaa aduu raqiib ku toon la joogta waxbuu cabbi karaa waxbuu cuni karaa laakiin intaasoo dhan markuu uga fogaanayo ilaahay daraaddiisi marka waa sir ilaahay iyo qofka saa'imkaa u dhaxaysa waxyaalaha waxay ka mid tahay xikmooyinka ah ee markaa soomku uu leeyahay xikmooyinka soomku marka kuwa kale culimadu marka ay soo qaadaanna marka way jiraan way badan yihiin soomku marka waa shay aada iyo aada u weyna badan waxaa ka mid a matalan xikmada shayga la yidhaahdo sixada caafimaadka oo kale oo xadiid waxaa kusoo arooray uu warinahaya tabaraani mucjamkiisa kabiirka iyo awsadkiisa uu ku warinahayo waxaa kaloo warinahaya abu nucaym baa fi bin nabawiyi ku warinahaya rag kaloo muxadisiinta kamidana way wariyaan xadiidka bacdu lculuma daciif way ku sheegaan qaar xadiidka laftigiisa xoojiyo xufaada kamida laftigooduna way jiraan xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sida nabiga laga wariyo suumuu tasixu sooma waad caafimaadaysaan marka faa'iidooyinka soomka laftigiisa maxaa kamid a waa caafimaadka weliba tajriba ahaan dad badan oo adiba ah oo ama wadamadan galbeedka ha ku noolaadeen ama wadamada islaamka ha ku noolaadeene waxay ogaadeen soomku inuu waxyaalo badan oo caafimaada marka inuu keeno caafimaadku marka xaggee buu ka imaanaya wuxuu ka imaanayaa waa baahida jirka weye kaasuu ka imaanaya baahida jirka ee qofka ku imaanaysa maxaa yeelay qofku sanadkii oo dhanba hadduu caloosha buuxinayo ee markaa cunno uu ku gurahayo halkaa bilow marka yacni uu sooman yahay caloosha marka nafis bay qaadanaysa waxaa kaloo soomku uu leeyahay waxyaala adibadu in badan ay soo qaadaan oo waa maxay qofku marka uu wax cunahayo cunadiisu inay xad leedahay waxay yidhahdaan qofka caafimaadkiisa qayb badan waxaa ka qaadanahaya cunada qofku uu cunahayo waqti muqarana inay leedahay laakiin qofku hadduu cunada ka dhigo markuu rabo inuu iska cuno mar subaxii wax cun haddaa rabta duhurkii cun haddaa rabta u gambi marka la eego waxyaalaha waxay kamid tahay qofka caafimaadkiisa wax u dhiba marka soomka haddaad eegto waxa weeye cunadiisu way xadaysanta ilaa kale qofkii sidii shareecadu yeeshay markuu raaco oo kale iyo afurkii waa waqti xadaysan saxuurtii waa waqti xadaysan buu la imaanaya marka baahidaas laftigeedu ee caloosha lagu yareeya cunada nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid wuxuu ku yidhi tirmidi iyo ibnu maaja hero kaleba ay wariyeen maa malaa ibnu aadam wicaaan sharan min badni nabigu wuxuu yidhi binu aadamku ma buuxiyo weel ka shar badan calooshiisa nabi ma buuxiyo caloosha haddaad buuxiso dhibaatooyin bay ku keenaysaa daacadii ilaahay baad ka wahsanaysaa cudurro badan cayil bay keenaysaa badan wahsi bay keenaysaa cudurray keenaysaa nabigu markaa muxuu ku daroo yidhi bixasbi bni aadama akalaatu yuqimna sulba ama luqaymaatu sida riwaayinka qaarkood ay ka cabira bini aadamka waxaa ku filan cunidiyaal xoogaa uu cuno oo dhabarkiisa toosiya fa in kaana laa maxaalatan fa thuluthun linafasihi wa thuluthun liطacaamihi wa thuluthun lisharaabi wa thuluthun linafasihi haddii laakiin aanu daynayn ee cunno intaa ka badan uu rabo 3 qaybood caloosha ha ka dhigo qayb cunada ha ugu talagalo qaybna cabitaanka ha ugu talagalo qaybna neefsiga ha ugu talagalo waa haddii xataa uu rabo xoogaagaas hadba uu cunaha inuu ka badiyo nabigu 1400 sano ka hor markuu intaa lahaa haddeer macnahaasay qabaan dadkan dhakhaatiirta ah oo dadka waxay kula taliyaan qofku markuu cunada cunahayo wax yar inuu cuno waa cunno badan qofku aanu cuninin sidaasaa qofka caafimaadkiisa u fiican yira sidaa daraaddeed markuu macnaha ka waranayay wuxuu yidhi cumar ibnu khataab iyaakum walbitna fa inahaa hiqalun fi lxayaati wa natanun fi lmamaati iska jir buu yidhi caloosha inaad buuxiso iska jir buu yidhi calool buuxsigu adduunyada nolosha waxa weye waa culays cayil bay dhalanaysaa waxa weye jirkaagi iyo dhaqdhaqaaqaagi waa aad bay u cuslaanahaya wa natanun fi lmamaati geeridana waa qurub oo dadka haddii la eego qofka yacayna cayilani
markii uu geeriyoodo wax yar baa jirkiisa ku uraa oo kale waxaa laga yaabaa qofkaan caatada asagoo xataa sanooyin aasnaa haddii lasoo bixiyo awalba waxa weeye caatu ahaa iyadoo haraggii iyo lafihii isku dhegan yihiin in la arko marka sidaa daraaddeed taasina waxay ka mid tahay xikmada soomka aqulu qawli hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam